asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akhyaari waa idin salaamaya salaan kadib waxaynu rabnaa inaynu dul istaagno arrin muhiima taa oo ku salaysan dilkii ikraan tahliil fahad yaasiin ayaa sheegay inuusan waxba aqoon u lahayn bal aynu kilibka dib ugu laabanno waxaynu kala dul istaagi doonaa arrinta caddaynaysa in uu fahad yaasiin gabadha uu dilay laakiin aniga intaan hay-adda madax ka noqday oo agaasimaha ka noqday agaasima ku-xigeenkan ka bilaabay haddana agaasimaa noqday intaas ikraan hay-addana kamay shaqaynin oo may noqonin xubin ka shaqaysa xil umaana magacaabin wax wada shaqaynana nama dhex marin sida idiin muuqata fahad yaasiin wuxuu inkirayaa weliba uu aad u inkirayaa in wax shaqa la yidhahda aysan dhex marin balse su-aal yaa ikraan tahliil u waday u k yee la socotay keligiis miyuu ahaa qof kale la socday intaba waxaa inoo qiixaya brofesor maxamed xaji ingiriis yaasiin fari iyo adiga goorma isbarateen yaasiin fari ani waxaan isbaranay waagu fahad la shaqayn jiray fahad waa tuu gacan yaro waa soo mawid ya see isku barateen fahadaan isku baranay meesha fahadaan isku baranay aqoon hore isumaadna lahayn maya meesha waagii uu tureer la shaqayn jiray arki jiray laakiin si fiican interaction sheeka waxaan yeelan jirnay fahad markuu la shaqayn jiray waa dambana London isku aragnay oo fahad soo raacay soo mawid ikraan tahliil maray la socotay 2019 October fahad uu London la yimid asagana waa saragna waa joogay ikraan ayaga isla socday halka waxay nooga cad waraysiga fahad yaasiin inuu dhammaantiis u wada yahay wada been dhanka kale fahad yaasiin wuxuu sheegay in gabadhan shaqo aysan dhex marin halka brofesor maxamed xaji ingiriis uu inoo sheegay saddexdooda wada socda inuu la kulmataa oo ka dhigan in fahad yaasiin uu ahaa nin kusoo booqan jiray waxbarashadeeda heerka ay marayso maadaama ahayd gabar hay-adda nisa wax usoo baranaysay su-aasha kaloo imaanaysa ayaa waxay tahay gabadhan kiiska loo dilay waa maxay ma kiiskii ku salaysnaa ilmihii loo qaaday elitariya mise weerarkii lagu qaaday robow mise wuxuu noqon karaa ayay dadka qaar leeyihiin dilkii loo geystay injineer cabdiraxmaan yariisow ahaa gudoomiyihii hore gobolka banaadir hase ahaatee su-aashu ay dadka isweydiinayaan ayaa taa ah dhanka kale brofesor maxamed xaji ingiriis ayaa inoo sheegaya kiis walba oo baryahan ay soomaalida ka hadlayso in lagu qiimeynayo black and white oo ah labada dhinac muxaafad iyo muxaarad ummadii niyahow xasanow ummadii dhexdhexaadnimadii ayaa meesha ka baxday wax walba waxay ku qiimeynayaan black and white caddaan iyo madow wax walbana waxay ku qiimeynayaan u dhowaanshaha qofka u dhow yihiin oo ay dana siyaasadeed ama manafacad ay wax ka leeyihiin marka taas waxay saameynay go-aanka ay qaadan lahaayeen waxay marka ayaga oon wixii u fiirsan ama dersin ayay dhinac iska raacayaan waxaanu soo gaarnay gabagabada ugu dambeyn gabadhan fahad yaasiin kama dheero dhaxaan murugiyo haraan mudane